السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. خيارت شرفت كرامة يماموس كمدرات بانيني سلام وقت وناكسن ينور القروح بدن وين رتينينا يكسو دواده كنال كنا عافيماتك يا دريالك عافيماتك وإنو ما أنت كجهل دي دون فائدة عضو بلالة ولا جاي بقفكو إنو كبر سنين inaynu isku sheegno oo halkan aynu markaa iska xusuusino badi dhakhaatiirta culimada caafimaadka iyo howlwadeennada caafimaadku intuba aad ayay dadka ugu dhiirigeliyaan qofkana ay u sheegaan inuu biyaha aad u cabo 70% boqolkiiba 70 xusuusna uu jidhkaagu waxa uu ka samaysan yahay dareere iyo biyo jidhku waxa uu si joogta ugu baahan yahay xilli kasta iyo waqti kastaba cabitaanka biyaha oo ku saafi karaynaya kelyahaaga beerka isla markaana dhammaan xubnaha jidhka waxay siinayaan inay hawshooda qabsadaan oo unugyada dhimanaya ee jidhkeena ka dhimanaya maalin kasta ay dub u soo noolaadaan oo unug cusub la sameeyo haddaad markaas biyuhu ay kugu yaraadaan ugu muuqaalkaaga iyo jidhkaaga iyo xubnaha internal organka la yiraahdo gudaha kugu jira intuba caafimaadkoodu hoos buu dhacayaa la soco xusuusno waxa lagaaga baahan yahay biyo badan maalinteena cabtid ugu yaraan 3 litir ama 2 litir inaad si fiican u cabto waa muhiim ka basashada 6-5 inaad gaarsiisaa wax ka xanimaya ama ka xayiraya ma jirto aan wanaag ahayn atamar ahayn caafimaad ahayn waad ka qaadaysaa ma jirto haddaba biyuhu 3 xilli baa muhiimadooda leh Soomaalidu waxay yiraahdaan oo dad runtii aad u aftahama biyuhu mar waa malab marna waa sun marna waa sahay bay yiraahdaan iyagoo u jeeda mar waa malab salaada hore iyo subaxii waa malab bay yiraahdaan marna waa sun oo ay ula jeedaan xilliga habeenkii qofku inuu cabo uma wanaagsana ay ula jeedaan marna waa sad oo waa markuu qofku gaajaysan yahay oo uu ku gaajo baxaabay u jeeda yacni fikirka Soomaaliga ah waa fikir gabi ahaanba saxsan baynu oran karnaa waxa laga yaabaa qofkaas qof aqli badan inuu ahaa sidaa yiri oo aanu scientifically u eegin laakiin aragtida caafimaadka way iskeenayaan iyo aragtida Soomaaliyeed ee markaa qofka ahlu aqliga ama ahlu murtadka ah ee Soomaaliga ah ee murtida badan ee qofkaas uu yiri biyuhu salaada hore ayay faa'iido badantay waxay kaaga dacaalaan oo ay kala dagaalamaan 3 xanuun waanu tilmaami karno xanuunka koobaad waa aciditiga xanuunada ay sababaan ee loo yaqaan gastritis xanuunka gastriga qofka biyaha caba salaada hore xanuunka gastriga difaac badan buu ka galaa hadda haduu qabana gaaska uu subaxii dhaalinaya waxa uu ka helayaa relief badan iyo inay boogti iyo ulcerki ay yaraato qodobka labaad ee runtii isagana muhiimadiisa waxa weeyaan dadka inta badan qaba xanuunka loo yaqaan heartburn ama heartburning waa laabjeexanka faa'iido badan bay u tahay iyagana salaada hore ay cabaan haddii salaada hore biyo badan cabo ugu yaraan 1 litir ama 1 litir iyo badh oo xataa uu cuno cunto ay ku badan tahay waxyaabaha inta badan chemicalka ama cuntooyinka waxyaabaha inta badan khamiiriyaha ay canjeerada lagu khamiiriyo ee laabjeexanka cuntooyinkii uu ka qaadi lahaa almost inaanu ka qaadin ayaa markaa rajadu ay tahay oo ay u badan tahay ooyada qudheedu laabjeexanku waa qayb kamid ah ICD sar soo kacday ee upper respiratory-ga soo fuushay ayay ka dajinaysaa oo laabtii markaas dilaaca iyo xanuunku ka dareemi lahaayad ka baxaysa xanuunka saddexaad waa dhinaca cholesterol dadka inta badan biyuhu ay ku yar yihiin cuntooyinka faatiska ana isticmaalaa waxay khatar aad u badan ay u jiraan inay cholesterol qaadaan laakiin dadka cabitaankoodu badan yahay xanuunada cholesterol ku dhacay inta badan inay markaa dufanowga iyo wadna xanuunku
meesha wuu ka baxa uu ka yaraada. faa'iidooyinkaas iyo kuwo kaloo aad u badanba waa leeyahay. marka cabitaanka biyaha subaxii laga soo bilaabay ilaa maalintii oo dhan inaad aad u cabtid weeyaan. habeenkii wixii 6 habeennimo ka dambeeya waxba cabitaankooda ha isku badinin ee waad yaraysan doontaa haddii Ilaahay ka dhigo. intaas ayaynu ku soo ururinaynaa kilibkeennii ku saabsanaa faa'iidadaas ka u ballaaran iyo manaafacaadka ay leeyihiin iyo xilliga la cabo biyaha oo runtii aynu aad iskugu recommended karaynayno oo aynu aad iskula talinayno bulshadeennu inay aad u cabaan. qofku marxalad kastaba ha ku jiro, xilliga uu yar yahay, xilliga daa'ada dhexe iyo marka uu qof weyn yahayba inuu aad u cabo ayaa muhiima. dib ma laha, waa laga yaabaa inuu qofku dadka qaar aanay aqoonin biyaha aanay cabitaankooda badan, laakiin inaad ku qasabto oo cabto ayaa muhiima.